بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هرددو ونعمة وين والله سبحانه وتعالى وأدوميه سسيو قفك بني آذن كاهي مالينتي أوردن سيدو أدالين هاي مركي أسريتي ستاقو هبينكي هدي هرد معان هلو وحسوتو سيا إساقو نستي ولباتدي يدالكي يمدحانونكي يوريركي سوك نست waxaa jirta waxa la yiraahdo daalka hurdada. Daalka hurdada waxa weey qofkii markii uu seexdo ayaa waxa ku bilaamaya qarow iyo cabsi iyo riyooyin iyo isagoo ku riyoonaya balacaysanaysa dagaal uu ku jiro sidaas daraaddeed qofkii wuxuu kacayaa isagoo madax xanuunaya oo daalan waxa la yiraahdaa daalka hurdada. Hurdadii kuma nasanayo qofku maxaa u daawaa haddii ay ku haysato dhibtaan daalka hurdada haddii aad la daala dhacaysid saddex arrimood inaad samayso waa laga maarmaan. midda ugu horeysa marka aad seexanaysid waysa qaado. nabigu sallallahu alayhi wasallam saxaabigii Bara ibn Azib wuxuu kula taliyay idaa atayta madja'aka fatawadda wudu'aka lis-salah. marka damacdid inaad seexatid waysa qaado ku yiri alayhi salatu wasalaam. maxaa yeelay daalkan iyo dhibaatadan iyo kulli waxay ka imaanayaan shayaatiin waxay ka imaanayaan shayaadiin taas oo qofka u diiday in uu nasto. maxaa yeelay shaydaanku waa cadow sida Ilaahay subhanahu wa ta'ala noo sheegay cadow buu nuugiya. kow waysa qaado. labo akhriso aayatul kursi. nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu noo sheegay qofkii aayad kursida akhrista markuu seexanayo in Ilaahay subhanahu wa ta'ala qofkaas uu u diyaarinayo cid waardiyeysa malaa'ig waardiyeysa shaydaankuna uu ka cararayo ka fogaanayo inta uu ka waabariisanayo. midda saddexaad oo muhiimka waxa weeye akhri labada aayadood ee ugu dambeeya suuratul baqara. nabigu wuxuu noo sheegay sallallahu alayhi wasallam qofkii habeenkii markuu seexanayo akhriya labada aayadood ee suuratul baqara ugu dambeeysa way ku filan tahay nabiga sallallahu alayhi wasallam. dhibaato oo dhan ayay ka kaafinaysaa dhibaato oo dhan ayay ka ceelinaysaa shaydaanku waa ka dheeraanaya qofka. qiyaamkii iyo salaadiina waxa la yiri way kaga filantay. inta kale oo lagu daro oo adkaaru nawmka ahna ha ilaawin sida macuudataynkii iyo ikhlaaskii iyo ducooyinka kale inaad akhrisid. laakiin waysa qaado waa sunna waa mashruuc. aayad kursidana akhri sidoo kale labada aayadood ee suuratul baqara ugu dambeeyana akhri daalkii hurdada halkaas ayuu ku tagaysaa kuugu dambaysa. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.